السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جانل كينا كوبعينتا غارادكا عرورتا ولاشن رحمة حسين maanta waxaan ahaa videogii hore midkiisii kale oo su'aal ka imaad oo ahaa caruurta inana caanaha naasaha la siiyo oo caanaha kana laga daayo marka asxaabta waxay soo weydiin su'aal okay warkaada waa dhageysanay hadalkaada waa maqalnay laakiin caanaha caruurta kuma filna seeba u keeni karnaa caana cunuga ku filan marka insha Allah 6 shay insha Allah aan nila wadaagaya hadii aad ku dhaqantiin idii caawinaa insha Allah number 2 wax cab hooyada cunuga naaska siinayso cab biyaha cad waxa wixii la cab cabitaanka baso biyaha cad baso wax kasto la cabi karo cab ada jirkaada iyo qalalnaan inuu wax cab kaas muhiim number 2 cunuga markas naaska si markas taade cunugta ama cunuga nuunaha hada markas naaska nuugu marka dabo caana badan ka imaanayo kaas waqti badan u baahan waa ogahay markas taada cunug naasina waqti badan laakiin adkayso hadana insha Allah taasna ku caawinaysa number 3 cunto oo caafimaad leh cuntada cunayso cunto kasta isku cuno caafimaad leh u fiirso waxa cunayso sababta cunuga ku nool yahay wax caafimaad leh waa inuu ka helaa saxa cunaysa sida qudaarta cunaysa cuntooyinka dabiiciga iyo cuntooyinka caafimaad kale adiga aad jus garaysanaysa taasna cunuga caanana wuu ka helaa caafimaadkana wuu soo aadna waad fiicnaanaysaa insha Allah number 4 cunuga markaa naasiiso oo ka dhameysto ama ay ka dhameysato waa la seesaa hadii mishiinka oo lagu lisku yeelo oo kula seesaa dadka si kasta u listidba maadaama caano badan ka rabtid cunuga oo dhameysa adna la soo bilaw les caana insha Allah number 5 ina stress iska yareysa walwalka iska yareysa oo adduunka waa oo iska dhibadan yahay laakiin isku day tanne aabiyaasha si gooni u la hadlaya hooyadii caana laga rabaa walwal ee buuq qajajacan ku wadii naga daayaya taasna aabiyaasha kuwa caawiyaan sidii oo walwalka iskaga yaray lahayd farxi lahayd oo farxadaada ka shaqee marka jirkaada waa inuu diyaar u noqon caanino keeno markaas insha Allah less stress jirka problemka iska yaray waa number 5 number 6 ha xishoona caawinaad weydiiso dhakhtarka caruurta weydii dhakhtarkaada weydii qof kasta su'aasha oo cunuga caanaba waa helaysa insha Allah ha xishoon su'aashaas waa caadi waa la weydiiyaa dadka marka insha Allah sababa cunuga caanaasi caani waa igu yiriin saa igu caabi karo marka insha Allah taasna muhiim oo muhiimsan waan ogahay may badan tacaanasiis waa ogahay waqti badan ay ka qaadanay waan ogahay wax badan inaan fadhiisid hawl badan iyo hawl adduunka laakiin caafimaadka ka muhiimsan adiga weyn Soomaalidana maxaa iska jecelnaan geel Sooma hadii xirada geelka oo joogo lagu geeyo ka war oo lagu dhaha geel caano badan ma laha ma ku dhargeysid ama ma ku ciileys whatever oo lagu dhaha ka war caano boora ku walaaqa maxaa dheelay hadalana iga jooji riska inta saaraba caloosha iga la soo caafimaadka marka intii riska oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu abuur ayaa ugu muhiimsan dalab buuxda inuu carruurta ay cabaan caafimaadku waa muhiim dadaal asxaabteeda way dadaashaa oo ma sha Allah saas iska dadaalka si badi la idin dhawaa insha Allah anigana ku jira السلام عليكم wixii su'aal hoos ku soo qoro insha Allah like and share السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.